والمالين ومضى أقول حيسا عصبين صنع لما أنت صنعوا القرار العلاج تيجي نصي على تيجي إما كا لا قلبنا يجي سور شيء لا لا قلبه سجل أقلوا والله تقول عني يحيى ما ندير ويدس دي توقمي عروري حافظ ده الساق ومركان ده كل صراحة يدور على ما يوضع الشاين هو أقلوا دي سكت بيه وحوي يوم ما توح كده حياة عن سمسنا دي ولا دي ما اللي يقول استيد دي توقمي هلا حصة وما لنا إن بيسني يمكن الساق لا يعمل كده بيس لكن ناشرين دي نقدر حياة نقدر حرتي سمرون تقول حياة أنت سبتي أنت سنعبنا waxaan ku jawaabnay waan soo tashanay waxaan ku leeyahay horta markii aanu istiraynay hadii horyaal iyo asam iska hor yimaadeen ma inaga iskeeru sidoo wax kala tirsanayay mise wala isku keendiray jawaabtu waxa soo baxday la isku keendiray oo dawladda dalkeeda faqashta isku dishay waayo anaga waxana la yiri xorriyadii aad haysan lahaydeen iyo dalkii aad ka lahaydeen waxa ka soo horeeya oo didiraya raacdo dabeetana waxaan soo qaadanay anagoo sasaro raacdo cad u haysan kii awdal joogay wuxuu ma aniga ayaa dalkayga lagu soo dulaa oo carruurtayda iyo dumarkayga guriyahayga eesna malaynaysa saaxiibadaan isku kalaas ka baahay mas'uuliyadda dhacay kamid ah in qarshaha kamid ah loo xariistay oo isku kalaas ka marwada maxaa soo baxay reelaas caanood ee regime daalina oo dadku dhaleynay aan ugu soo weeraray laakiin qaladka dhacay awgeed waa dhacday adduunka oo kalaas caanood la mid buu maxaa la yeelay marka waxaanu go'aansanay oo dastuurkeena ku qoran oo in qarshaha loo xariistay waa hiro waa geesi qaran maanta uu Italian oo soo istaayay waayo wuxuu badbaadinay qayb kamid ah Soomaaliland oo si qalad ah iyo colaad aanu ahayn oo ay kala gasoo soo keenay sida aniguba aan ugu weerar ugu ahayn la wada socotaan intii daawatay waxaanu clip ka soo qabanay waxaanu ugu barordiiqayno 4 February arrintaasi runtii waxay sas ku keentay xukuumadda inteeda badan waxaana barasaab Mustafa Dalxiis oo gobolka dibadda kaga maqan oo amar ku soo siiyay taliyaha qaybta sidii aniga la soo qaban lahaa la xidhi lahaa waxa muuqata sida uu jaahilka uga yahay barasaab Mustafa Dalxiis shuruucda dalka ee uga aradan yahay marka la yiraahdo international lawga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland labadaba waxay si buuxda ay u damaanad qaadeen xorriyatul qowlka ee muwaadinka waxa ma dhisi karo warniska hadlooyay taalo umadan kala dilaysa lagama dhisi karo boorama naga taalo ka dhisi horyaal wixii ka dhintayna waa geesiyaal qaran bay ahayn oo badbaadinaya qayb kamid Soomaaliland kuwa laas caanada la mid baahayn waa isku xuquuq asanan iyo horyaal iyo darwiish meel xuquuqda lagu kala fadilay oo hadii aad soo midoonaysa Soomaaliland intii Ingiriis ka tagay oo aad saa isugu midoonaysa dul qaateen maxaa qoladina asanan u diidantiin xamar iyo Soomaaliland la isku doonahay maxaa Soomaaliland diisan xamar labada taana waxaan doonayaa inaan joogtay haddaan nahay reer Soomaaliland oo dhan ma diidanin in caalamku midoobo oo dawladaha geeska Afrika midoobaan marka hore waxa la isku hayaa sidaba midoobaa haddii markii asan timada ay tiraahdaa Iiraan midoobin awdalay aynagoo xuquuq siman lahayn oo isku mid ah deelma yeelay soo lama yeeshan haddaan la oranay dhulkan wadana la xuquuq siman baynu leeyahay dabeetana inagoo isku mid ah wax wadhisanayna xamar iyo nimanka jooga waxa la fariinta la isku haystaa waxa weeye waxay Afrika oo dhan ku dhisan tahay ee dawladaha 54 ah ee Afrika ku dhisan yihiin xuquuqdooda iyo sharciyada ee adduunyada ku dhisantahay dagaalkii labaad ee adduunka markii la soo nabadda la saxay lagu dhisay jimciyada quruba ka dhaxaysa ee la yiri dagaal ku dhamaaday adduunka xuduudiisu ha ahaadeen ayaanu haddaan nahay Soomaaliland ku doodinaa oo ah inagoo ah Somaliland Protectorate oo 26 qaatay xorriyadooda oo qaran ah iyo idinkoo ah Italian Territory oo koodii July qaatay oo laba qaran ah oo simaro is ictiraafsan ayuu midoobi karaa ma galayna qaran ku noqon mayna qarantii 60